Assalaamu calaykum. Warbixinteena maanta waxaan kaga hadlaynaa waddan ka mid ah wadamada dariska la ah dalka Soomaaliya. Ka mid noqo saaxiibada ku xiran janalka Cilmi Baaris si aad u hesho warbixinada ku saabsan wadamada caalamka, qisooyinka, taariikhaha iyo dhacdooyinka caalamka. waddanka Kenya. Juqraafi ahaan Kenya waa dal ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaan geeska bari ee qaaradda. Waxayna xuduud la wadaagtaa wadamada kale ah Tanzania, Soomaaliya, Uganda iyo Ethiopia. Magaala madaxda waddankani waa caasimadda Nairobi, waana magaalada ugu dadka badan waddanka Kenya. baaxadda dhulka ay ku fadhiso Kenya waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 580,000 oo kiiloomitir. Warbixin ay United Nations samaysay sanadii 2012 ayaa la sheegay inay ka dhigtay tirada dadka ku nool Kenya inay kor u dhaafayso 43 milyan oo qof. Dhaqaalaha waddanka. Kenya waxay ka mid tahay wadamada ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika, gaar ahaan bariga Afrika. waddanka Kenya tan iyo markii uu xornimada ka qaadatay waddanka Ingiriiska, dhaqaalihiisu kor ayuu u kacayay. wax dhoofin badan ayay samaysaa Kenya ayna ka mid yihiin sida sokorta, qamadiga, waraaqadaha, alaabooyinka gawaarida iyo waxyaalo kale, taasoo ka mid yihiin maandooriyaasha sida qamriga iyo qaadka. dalxiiska. Kenya waxay ka mid tahay wadamada dalxiiskoodu yahay mid cajab geliya dadka ku nool iyo weliba kuwa ka imaada daafaha caalamka. waana mid ku soo jiito xayawaanada iyo dhulka waddankaasi ee doogga ah. dhanka luuqadaha. afafka ugu badan ee looga hadlo waddankan waxaa ugu badan luuqadaha Swahili iyo English, waxaana soo raaco luuqadaha Carabiga iyo kuwa kale. jawiga waddanka Kenya. cimilada dalkan inteeda badan waa mid dhexdhexaad ah, waxaana la sheegaa in bilaha March iyo April uu roob badan ka da'o, halka bilaha October iyo November uu roob yar u da'o dalka Kenya. xagga diinta. waxaa jira diimo kala gedisan oo ay aaminsan yihiin dadka waddankani Kenya, waxaana ugu badan Kiristaanka iyo Islaamka. ugu dambeyntii, Kenya waxay xornimadeeda ka qaadatay waddanka Ingiriiska 12 Diseembar 1963, 3 sano kadib xornimadii Soomaaliya. qowmiyadaha ugu badan Kenya waxay kala yihiin Kikuyu, Kalenjin, Kamba, Soomaali iyo kuwa kale. haddii aad danayso muuqaalada noocan oo kale ah, fadlan ku soo biir kanaalkan Cilmi Baaris oo taabo calaamadda subscribe-ta si aad ula socotid muuqaalada kale aan soo geli doono. waad ku mahadsantahay daawashadaada.